بسم الله الرحمن الرحيم وأنا دي سلامي دمانتين مركز أكو سوتين ضد كصوماليات waxaan doonaynaa ka hadlo dhowr qodob oo ku saabsan marxaladda waddankeena uu ku sugan yahay waqtigan runtii waxaan moodaa waddanka inuu galay jahwareer ku saabsan doorashooyinkii dib u dhacay marka waxaan doonayaa in aan dhowr qodob ka taabto sida banaan baxa madaxweynaha ha tago iyo wixii la mid ah ugu horeyn madaxweynuhu ha tago waxay ila muuqataa waddanka hala burburiyo sidii dhacday 91kii siyaad barre maxaa yeelay waddanka madaxweyne farmaajo waa tiirka dowladnimo asaga ha tagana iyadoo la bedelin waa burburkii aan horay u soo aragnay mana nagu cusba mideeda kale madaxweynuhu waa shakhsi dadku inay fiiriyaan maahan madaxweynaha waa inay waddanka fiiriyaan waa inay eegaan marxaladda waddanka ugu sugan yahay hay-adaha dastuurka booliiska maxkamadda iyo wixii lamida dowladda dhan baarlamaanka marka madaxweynuhu hadduu tago iyadoo la bedelin dowlad kala bedelin waxay noqonaysaa waddankii isku dhexyaac halkaas waa madaxweynaha ha tago dhanka kale haddaa fiirsho sida banaabax waxaa kula qaadayaa laba qaybood mucaarad xaq leh iyo mucaarad baadil ah dee mucaarad marka baadil waxa uu yeerayaa nin waddanka madaxweyne kasoo noqday oo haddana mucaarad isku bedelay caalamka lama sheegin madaxweyne soo rogaal celiyay oo haddana mucaarad isku bedelay madaxweyne waa kii ku tegi jiray sharaf sida madaxdii hore waddanka soo martay kasoo bilow siyaad barre oo ogtiin siyaad barre markii xilka laga tuuray wuu iska tegay dib uma soo jabhadeen taasna waa sharafta madaxtinimada madaxweynihii xigay cabdiqaasim markii xilkii ka dhamaaday wuu iska tegay masar uu iska tegay madax yaa ku xigay cabdullaahi yuusuf markii xilka laga qaaday wuu iska nastay hadda si lamida waxaan ka filaynay sheekh shariif iyo xasan sheekh inay iyagana waddanka ka nastaan maahan inay soo rogaal celiyaan sharafna uma aha waddankana danna uma aha runtii balaan eego raggan kale oo la xulufada ah labadii madaxweyne hore sheekh shariif iyo xasan sheekh cabdishakuur anu maanta cabdishakuur lama yaabsani oo waa wuxuu madaxweyne ma soo noqon waa wuxuu soo noqday wasiirda uu soo noqdana mucaaradnimo way u furan tahay maxaa yeelay jagadii madaxweyne weli ma gaarin hamigaas wuu ku taamaya wuuna u furayaan waana sharci laakiin xasan sheekh iyo sheekh shariif aniga aad baan ula yaabiyo runtii waddankana sharaf umaha igana sharaf umaha waddanku inay ka nastaan waddanka aysan khalaalasa gelin midad kale banaanbaxa lagu baaqayo sharci maaha maxaa yeelay madaxweynuhu waa ku sime waqtigan la joogo wuxuu ku simayaa dowladda imaan doonta ayuu ku wareeji doonaa xukunka laakiin waqtiga madaxweynuhu ha tago waan soo aragno ma nagu cusba 1991 marka waddanka yaa lagu ciyaarin waddanka yaa fooda la gelin waddanka yaa qiyaaliga iska dhaafo waddanka ha loo hogaansamo mideeda kale aniga farmaajo macna ii sameyn maayo mana jecli mana nabi laakiin waddankaga jeclahay waddanka daareeshinka u socdo ayaan doonayaa inuu waddankii meel hagaagsan gaaro waad mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.